tababar socday muddo 5 cisho ah oo loo qabtay qaar ka mid ah bahda caafimaadka oo iska kaashadeen jaamacadda Aadnaadan iyo ururka farmasiyada Somaliland ayaa maanta lagu soo xiray magaalada Hargeysa. Madashan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta jaamacadda, mas'uuliyiinta ururka iyo mas'uuliyiin kala duwan. Ugu horreynna waxaa madasha ka hadlay mas'uuliyiinta jaamacadda, mas'uuliyiinta ururka, qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee tababarka loo soo xiray iyo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee madashan ka soo qayb gashay. Waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. aynu ku xiri doono maanta tababarkii 5 cisho socday aynu kaga hadlaynay antibiotic resistance and comprehensive approach. aad baan idin salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waxaanu ku guda jirnay 5 cisho oo gelin hore iyo gelin dambe lahayd, taasoo kaga hadlaynay antibiotic resistance amba la qabsiga qalajiyaasha ee dadku ay la qabsadaan, taasoo baaxad weyn amba dhib badan ku haysa community-geena Hargeysa Somaliland. marka waxaan jeclaysanay tababarkan inaan u qabano professionalska, gaar ahaan pharmacy professionalka. waxa kale aanu jecelnahay haddii la yiraahdo training inta ka badan aanu qabano. Association-kan dawayaqaanada, ururka dawayaqaanada aan waliba ka codsanaynaa adina way ballan qaaday in tababaro joogto ah oo aqoon-yahanadan iyo qaar kale oo fara badanba loo qabto si aynu markaa aynu isku same page aynu noqono oo la dagaalano bacteria-dii oo aynu ogaano bacteria-dii waa intaasoo noocyo badan bay leedahay. guud ahaan waa 3 nooc, laakiin intaasoo nooc oo kala duwan bay leedahay. mid kastaana waxaa laga yaabaa inay iska caabido antibiotics u gaara ama lidnoole u gaara. sidaa daraaddeed intiinana waxaa ka wada shaqaysaan farmasiyada. waxaa ka taagan waynu garanaynaa farmasiyada in qofku islaamtu ay iska imanayso oo oranayso dawadii heblaayo ay ku bogsootay iyadoon prescription iyo waraaq dhakhtar uu u soo qoray aanu jirin. markaas waxaas oo dhan la tacaali lahayd dawooyinka la isaga qoray uun ee la wado uun ee kiilooyada ah ee Ethiopia berigii hore waabay nagu yaraydo. Ethiopia dawooyin badan may soo qori jirin, imika wayna la qabsteen, wayna barteen. waxa weeye kiilooya la soo siinayo qofkii, kiilooyo dawaaba la soo siinayo. dhakhaatiirteena way ka arkay siday dadka ugu qoraan. marka waxaas oo dhan baynu u baahannahay inaynu uga turno dadkeena, inaynu ka ilaalino dadkeena, inaynu ka wacyigelino dadkeena. waxaa lana siiyey training ku intuu socday guidelines in lana baro guidelines in lagu dhaqmo oo hospitalku formulary samaysto u dejisan siyaasado u dejisan oo ku yareyn kara antibiotic resistance-ka. sidoo ogsoonayba daawooyinka kale inaanay wax resistance keenin, qofka hadii uu jiro aanay dhibaato caafimaadkiisa ku hayn bayn ognay, laakiin inuu antibiotic uu yahay ka ugu muhiimsan in resistance-kiisa la yareeyo ay tahay. sidaas la mid ah guidelines-kan raacaynay ee training ku intuu socday lana siiyey waxa weeyaan WHO guideline inaynu raacno, in BNF guidelines-keeda aynu raacno, inaynu hospital formulary u sameeyno hospitaladan lahayn kuwa inay ku dhaqmaan. sidoo kale community pharmacy-gu ah isha ugu wanaagsan, isha ugu badan ee uu ka socdo resistance-kuna, in awareness laga siiyo, consultation ay pharmacy-gu bixiyaan, in roolka pharmacy-gu koona walba oo hospitaalada iyo farmasiyada ahba inuu roolkii farmasiigu uu jiro in la qaato. hadii nahay dhakhaatiirta dawayaqaanka Somaliland waxa weeyaan antibiotic resistance in la yareeyo. rool dalkan kaleena waa ka antimicrobial resistance waxa lagu yareyn karaa in la joojiyo dawada, in la iska qaato, inay dhakhaatiirtu joojiyaan over prescription-kan ay dawada qorayaan iyagoon ka fiirsan, ama ay qorayaan antibiotic badan oo midya 2 iyo 3 ka badan, isagoo qofka ay u fiican tahay inuu hal dawo qaato ama 2 dawo qaato ayaa waxay qorayaan multi-drug resistance. iyaga ka qayb qaadan resistance si ay uga faa'iidaan kos. marka waxaan kula talaa dhakhaatiirta Somaliland oo dhan inay dhakhaatiirta cambaareen inay iska eegaan dawada ay qofka beeshinka u qorayaan. talo barnaamijka noocan oo kala yaa ku soo baxayo laga dhigi karaa ardayda wax baranaysa. in badan markii la rogrogay waxa laga dhigi karaa qof jaamacadiina dhameystay amba sanadkii u dambeeyay ku jira experience nale meelihii hospitaaladii amba farmasiyadii waaweynaana jooga. saas baa 30kiina qof lagu soo xulay oo la yiri qofkaas waa qof capacity-geedii leh. marka intii la soo xulay miidahayd insha Allah waxa la idin rajeynayaa inaad bulshadii wax weyn ku celisaan oo wax weyn ka qabataan.